qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Garowe oo kaashanaya dowladda Puntland waxa ay bilaabeen dadaalo xooggan oo loogu gurmanayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii 14 bishan ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. wariyahayaga Suways Gacayte ayaa ka waramasa. wasiir dawlaha xiriirka golayaasha ee madaxtooyada dawladda Puntland iyo dhalinyaro ku nool magaalada Garowe ayaa dadaalo ugu jira sidii ay ugu gurman lahaayeen walaalahooda ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii 14 bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. dawladda Puntland ayaa ku dhawaaqday in gurmad degdeg ah loo diro masiibadii ka dhacday Soobe ee magaalada Muqdisho, waxayna u saartay guddi hawshaas wadi doona. dawladda Puntland waxay dirtay gurmadkii ugu horeeyay oo ah dhakhaatiir dawo iyagoo gaaray magaalada Muqdisho. Aamine Cabdi oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Garowe kana mid ah dhalinyarada la magac baxday gurmad qaran ayaa dhankeeda sheegtay in ay garab taagan yihiin walaalahooda Soomaaliyeed ayna sii dardargelinayaan gurmadka. wasiir dawlaha xiriirka golayaasha madaxtooyada dawladda Puntland Cabdullaahi Quraan Jecel ayaa ka warbixiyay dadaalada gurmad ay Puntland ugu jirto si ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen walaalahooda waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii shacab badan naftooda ku waayeen, isagoo sheegay in gurmadkii ugu horeeyay ay dirtay Puntland maalmaha soo aadana diri doonaan diyaaradii labaad. wuxuuna u mahad celiyay dhammaan ummadda reer Puntland meel kasta ay joogaan si ay ugu diyaarsan yihiin inay u gurmadaan walaalahood Soomaaliyeed. waxaan rabnaa maanta dawladda Puntland inaan u sheegno shacabkeeda inay dawladdu garab taagan tahay dhalinyarada reer Puntland ee u istaagay ka danqashada walaalahooda lagu dhibaateeyay magaalada Muqdisho iyo xasuuqii cadawga u geystay ummadda Soomaaliyeed ee ka dhacay magaalada Muqdisho. waxay dawladdu u mahad celinaysaa dhalinyarada reer Puntland gaar ahaan kuwa ka wada shaqada degmada Laascaano, kuwa ka wada Baran, kuwa ka wada Qardho iyo kuwa ka wada Boosaaso, Gaalkacyo iyo caasimadda Puntland ee Garowe oo aan hadda wada joogno. waxaan dhiirigelinaynaa inay shaqadaas ay wadaan, isla markaana waxay dawladdu qabatay guddi heer qaran ah oo gurmadka walaalaha lagu dhibaateeyay magaalada Muqdisho oo wasiiro ah sida madaxweynaha dawladda Puntland uu ku dhawaaqay. saas awgeed waxaan insha Allah midayn doonaa shaqada ay wadaan dhalinyarada reer Puntland meel ay joogaan iyo guddiga xukuumadda ah. maanta waxaa la diray gurmadkii koowaad oo dawladda Puntland ay dirtay. insha Allah gurmadka labaad ee dawladda iyo dhalinyarada iyo culimada iyo shacabka Puntland ay wadaana markii la soo gabagabeeyay ilaa biri waxaan isku dayeynaa in diyaaradii labaad ee maaragtay muxuu ah reer Puntland in la diro. saas awgeed dawladda Puntland waxay u sheegaysaa shacabka in laga wada qayb qaato gurmadka walaalaha lagu dhibaateeyay ee lagu xasuuqay magaalada Muqdisho. magacayga Aamine Cabdi oo aan ku hadlay dhalinyarada Puntland runtii waxaan aad u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hawsha qaran ay u istaageen oo si degdeg ah ay uga jawaabeen oo guri kasta garaaceen oo gaari kasta istaajiyeen oo aniguna aan ka mid ahaa. runtii waan u mahad celinayaa. waxaan leeyahay gurmadku kan kaliya yuuran qone meel kasta oo uu ka jiro Soomaaliya in sidaas oo kale loogu istaago. dadaalka adag ay ku jiraan reer Puntland dhinac kastaba ha joogeene oo ugu sareeyay madaxweynaha dawladda Puntland dadaalka dheer ay ku jiraan runtii waan uga mahad celinayaa. Suways Gacayte, TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Garowe.